Assalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabta ku xiran Adeec Channel. Kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Balse intaana muuqaalka guda galin waxaa iga codsiya inaad muuqaalka subscribe saarto, like gareyso, share gareyso, wixii fikradaadeen aad nagula wadaagto commentiga mahadsanidin. Balse muuqaalkeena maanta waxaa uga hadli doonaa bisha barakeysan ee Ramadaan. Ramadaan waa bisha sagaalaad ee jadwalka taariikhda Islaamka. Waana bisha dadka muslimiinta dhammaantood soomaan iyaga oo tixraacaya sida uu farayo kitaabka Qur'aanka ee diinta Islaamka. Bisha Ramadaan waa waqti dadka Islaamka ah soomaan waqtiga maalintii, isla markaana cibaadaystaan habeenkii iyaga oo tukanaya salaado saa'id ah sida salaada taraawiixda iyo taajudka. Sidoo kale bisha Ramadaan inta ugu badan waxa ay ku dhammaataa 29 maalmood ilaa 30 maalmood. Waqtigaas oo lagu bilaabo aragtida dayaxa isla markaana lagu dhammaystiro aragtida bisha. Bishan waa bil dadka Islaamka aad iyo aad ugu muhiim ah. Soonku waa mid waajib ku ah dhammaan dadka muslimka ah ee qaangaadhka ah marka laga reebo qofka xanuunsan, kan safarka ku jira, qofka da'da ah ama gabowga, dumarka uurka leh, dumarka naaska nuujinaya, dumarka dhiigga qaba. Sida ku xusan taariikhda Islaamka, soonka bisha Ramadaan waxaa waajib laga dhigay sanadkii 2 ee Hijriyada. Waqtigaas uu dadka muslimiinta ahaa ka soo qaxeen magaalada Maka iyagoo u socda magaalada Madiina. Fadliga bisha Ramadaan waxaa ka mid ah in la furo albaabada jannada, lana xiro albaabada naarta, lana xirxiro shayaadiinta inta waaweyn, taas oo muslimka u sahlaysa inuu ka fogaado macaasida, allana ugu dhowaado cibaadooyinka suuban iyo dacwooyinka u dhoweynaya jannada, kana fogeynaya naarta. Nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa laga wariyay inuu yidhi, habeenka u horeeya ee Ramadaan waxaa la xirxiraa shayaadiinta iyo kuwa jinka ugu madaxa adag. Albaabada naarta waa la xiraa oo waxba lagamana furo. Albaabada jannada waa la furaa oo midna lagama xiro. Mid dhawaaqa ayaa ku dhawaaqa isagoo leh, ninka khayr doonayo soo jeeso, ninka shar doonayo jooji sharta. Sidoo kale bisha Ramadaan waxaa la soo dejiyey kitaabka Qur'aanka. Waana bil barakeysan oo dadka muslimka u ah waqti aad ugu talagalaan. Waana bil dambi dhaaf leh, ajarkeedana uu ka badan yahay ajarka bilaha kale la sameeyo. Waa bil la aqbalo ducooyinka. Intaas waxaa dheer in bisha barakeysan ee Ramadaan ku jirto habeenka ugu weyn sanadka, taas oo ah habeenka Qur'aanka Kariimka la soo dejiyey. Waa habeenka Laylatul Qadriga oo ka khayr badan 1000 bilood. Haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, waad ku mahadsantahay daawashadaada.